بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh asxaabteena soo dhawaada waxaa ku soo dhawaataan ama aad maanta aad u jeedaan waa muuqaal kale oo qurux badan muuqaalkan waxaa idinku tusaynaa guri dhismo ah oo heer bilaab ah maraayo heerka uu maraayo waxaa waaye aas-aaska ayaa la xirayaa ama dadka qaar sida u yaqaanaan biyaanateerka waxaan la soo dhisay dhulka hoose dhagax ayaa carrada hoos loo geliyey dhulka kadib haddana kor ayaa loo soo qaaday hadba waxay ku xirantahay kor inta loo soo qaadaa mitirada oo guriga dhulka ka sarreeyo iyo sida uu god u yahay guriga waxaa la rabaa jidka in lala soo simo dhinacyada qaarna xataa jidka waa inuu ka kor maraa waxaa qalada guriga in hoos loo galo haddii kale waxaa dhacaysa in qashinka biyaha wax walba oo bannaanka ka yimaada ee guriga galaan dadka deganna ay ku dhibtoodaan saas aawageed ayaa horta waxaa qasab ah guriga in la carro buuxiyo jidka lala soo simo kadib haddana qayb yar kor loo qaado sida og tihiin dhulka muddo kadib carrada kor ee u soo kacdaa guryaha way duugmaan marka taasna qayb ay ka tahay isleenahay marka soo dhawaada ujeedaana filayaa waxaas waa derbiga aas-aaska haddana meelaha u dhexeeya oo meesha uu ka xiran yahay ilaa inta dhulka u dhexeysa waa lasoo wada buuxinayaa guriga markii la shubo kadib ayuu bilaabanayaa waa shubkii ugu horeeyay ee xiridda biyaanateerka hadda kana kor darihii waa la sameeyey birti waa la dhigay inkastoo hawsha ay weli ku socoto markii birta iyo wax walba loo hagaajiyo ayaa la dhammaystirayaa shubka lagu shubayaa insha allah alwaaxaasna waxaa loogu talagalay si oo shubka aan u daadanin wax badan in aas-aas ka fahateen aan rajaynaa sidoo kale waxaa diyaarinaynaa maanta suuliga boosneerkiisa waa isagana hawshiisa ay socoto la shubaayo insha allah shubka markasaan loo diyaariyo oo meesha lagu shubi lahaa la diyaariyo keliya in la shubo oo shubkii lagu buuxiyo ayaa dhiman hadda guriga waxay u jarayaan qaabka loo dhisi lahay qolalka qolba mitirkiisa aa lagu qiyaasayaa laakana meesha boosneerka shaqada ka socoto iyadoo la qodaayo marka soo dhawaada macaamiisheena waxaan diyaar u nahay inaan idiin dhisno guryo qurux badan haddii aa u baahan tahay jiingad waa lagu dhisayaa bacweyne guri filla ah gurigan waa guri filla ah sida kanoo kaleete waa lagu dhisayaa naqshado kala duwan ayaa lagu sameynayaa qurux badan ood kala dooranaysid haddii aad dabaq suga rabtid dabaq haddii ay rabtid soo dhawaada ka faa'iidaysa wacan si hufan ayaa mar walba u shaqeynaa boosneerka ujeedaana filayaa dhagaxii lagu wareejinaya waaye iyo shubkii hadda bilaawaayo godkiyaa qodan dhagaxii hadda la gelinaya kadib waa la shubayaa birtiyaa la saarayaa waxyaabo badan salaadkeeda macaamiil idinka hor mahadsan waxaa idinka rajeynaa inay adeeg yar aa ku qanci doontaan muuqaalkan aad ka heli doontaan lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira insha allah ugu dambeyn kanaalka subscribe noo saara gambaralkana furta waa mahadsantihiin